السلام عليكم أصحابتا سودوادا وحرونا ندوب مقال كسابسن نولش كندا دبهانتي وقت بدن متشوغ وطن كان لكن انت انشوغي ميل بدن ayaan ku noolaaday si nin dhalinyaro ah oo nolosha la halgamaya u sameyn lahaa gobollo badan ayaan ku noolaaday gobollo badan safar waan ku maray dabahantii aan ku dhihi karo kala barkinida ma isticmaal markii loo qeybiyo laba meel waa maray nolosha ay marsiisay nin dhalinyaro oo wax raadinay nolosha raadinaya hami leena intaas in ka badan uu sameyn lahaa waxaan hadda joogaa oo aan waqti xaadirkan ku suganahay gobolka Alberta ee magaalada Edmonton oo dhabaxantii waqtiyadii ugu dambeysay noqonaysay meeshii ugu badan ay ku nool yihiin Soomaalidu ha ahaadaan family ama ha ahaadaan nin dhalinyaro ah ama gabadh dhalinyaro ah oo iskaabula ah Edmonton waxyaabo badan lagu doorbidaa waxyaabo badan ayna ku doorbidaan Soomaalidu inay magaaladan ku doortaan magaalada inta ugu badan ee Soomaalidu ay ku nool yihiin awal Toronto ku noolaayeen laakiin Toronto way ka soo haajireen takriibi kara taas waaye Toronto Ontario waa laga soo tagay meeshaan la soo aaday Toronto maxaa looga soo tagay Edmonton maxaa loogu doortay waa su'aal fiican Edmonton waxyaabo badan ay ku fiican tahay hadii aan u kala saaro family indhalinyaro gabadh dhalinyaro ah nolosha ciirsanaysa iyo student saddexda markii loo kala qaybiyo okay Edmonton wuxuu ku fiican tahay nolosheeda macaan waxaan rabaa qodob muhiim ah oo ah inaan ka hadlo shaqada iyo gobolada ugu fiican Canada ka shaqeey karto okay gobolka wuxuu ku fiican yahay hadaa tahay nin dhalinyaro meesha ay maaday dabcan shaqo ay maatay lacag soo raasatay Afrika ka imaato waa gaajaysan tahay okay gobolka ugu fiican oo shaqo ka raadsan karto probably British Columbia hadda noqotay oo sababtu waxay tahay kaama ka soo furmay waxa kale oo jira Edmonton ay jirta Edmonton iyada waqti fiicneed laakiin mar ka dambaysa way soo xumaanaysaa soo markay hadda waxaan joognaa Queen Elizabeth waa meeshii ugu qurxan Edmonton meel yar somehow weyn tahay laakiin meel shaqo waaye wax badan ma yaalaan soo meeshaan waa meel kamid ah meeshii magaalada ugu qurux badan xogaa wareegina waxaan isku diyaa inaan inta wareegayno aad tagno meelaha xogaa ugu yar fiican soo gobolkan Edmonton wuxuu ku fiican yahay Edmonton wuxuu ku fiican yahay dad dhalinyarada shaqeynayso waa shaqeyn kartaa dhalinyaradu badankooda waxay sameeyaan magaaladan guriga Kristaan marka Kristaan waxay sameeyaan kaamami aadan kaamarka markay aadayso kaamarka meel badan ay aadaysaa ee ka mid tahay Saskatchewan hadda ku la aadi jiray hadda wax badan lama aado hadda waxa furan kaam badan ka furan British Columbia waxa kale oo jira Edmonton laftirkeeda waxa jirta Edmonton laftirkeeda banaanadeeda kaam waa laga aadaa laakiin hadda kaamku waa soo xirbayaan laga yaabaa in wax furfurnaan future-ka but right now wax badan ma furna badan waxay ka furan yihiin British Columbia xagga loo aadaa saa sheegaybo Edmonton magaalo waa la wada degan yahay laakiin kaamku waxay ka furan Alberta oo dhan waaye gobolka waaye laakiin Edmonton kaam ka furan ma jirto Edmonton meesha la degan yahay waaye dhalinyaradu waxay ku doorbidaan Edmonton inay degaan Edmonton guri raqiis laga helaa nolosheedana waa raqiis soo waxay sameeyaan fly in fly out al sameeyaa way degan yihiin diyaarada lagu qaadaa kaamkii degan yahay la geeyaa kabacdina waa soo celiya magaaladooda imaadaan bro waxay shaqeeyaan normally 2 weeks ila 3 weeks inta u dhaxaysa soo waxaan rabaa inaan ku bilaabo dhalinyarada tahay okay dhalinyarada tahay oo wadanka raba Canada inuu imaado xagee ugu fiican in dhalinyarada ku noolaado waa kala qaadanayaan dhalinyarada dhalinyaro oo raba inuu shaqeyso iyo dhalinyaro raba inuu wax barto labada ugu muhiimsan taas waa qof iska noolaanaya ma jiro loser inaa nolosha wax sameeysaa rabtaa nolosha meesha wax u imaatay nolosha wax ka bilowdo inaa meel aado waaye soo dhalinyaro hadda u baahan tahay inaa aado wax barasho hadda aado oo yara mustaqbal fiican oo ogtahay meesha aad baris wax caadayso waxa ku fiican aado gobol yariisa maxay ugu muhiim u tahay gobol yariisa muhiimada waxay u tahay daaqadaha iska xidha magaalada buuqooda gobol yariisa wuxuu muhiim u yahay nolosha raqiis waaye
buuq badan ma lahan haddii aad u baahan tahay inaad hesho any level u baahan tahay waxbarashadana easy ay kugu tahay inaad hesho comparing the big cities markay imaato magaalo weyn way adag tahay inaad hesho waxbarashadaad u baahan tahay facultyga u baahan tahay iyo goorta u baahan tahay inaad bilowdo so that's why ay u fiican tahay inaad aado magaalo yariis ah aad daqiiqadii aad ka bilaabi karto nolosha ku fiican tahay ma fahmaysaa haddii u baahan tahay so okay magaaladii aadi kartaa markii haddaad tahay nin dhalinyaro ah oo wax baranaya ani ahaanteeda waxaa ii lahaa saayida ugu noolaa waqti fiican aan wax ku soo bartay aan joogi jiray Manitoba gobol la dhaho especially Winnipeg waa magaalada ugu weyn laakiin magaalooyin yar yar jira oo geesaha ka oo tuulooyin inkastoo xoogaa tuulooyinka ay ka safety yihiin magaalada xoogaa Winnipegta laakiin normally same noloshooda wax badan isma dhaamaan marka Winnipeg waa aadi kartaa gobolada ka yira Manitoba waa aadi kartaa maxaa ku soo xiga magaalada Alberta gobol yar yariis leedahay gobol la dhaho hadda kale magaalo yar la dhaho Red Deer la dhaho waxa lagu bari karaa way iska macaan tahay xoogaa Soomaaliya joogta hal community Soomaaliya ka dhisan maqlaayay so xaga waa aadi kartaa maxaa ku soo raaca gobolo kale way jiraan laakiin Saskatchewan waa aadi kartaa Saskatchewan gobol la dhaho waaye Saskatoon waaye magaaladeeda Saskatchewan gobolka waaye Saskatoon waa aadi kartaa magaalooyin u dhawaan waa aadi kartaa tuulooyina Regina magaalada Regina way sax laakiin caasimad waxa waaye Regina waaye caasimada Regina waaye so markii labadooda waa aadi kartaa Edmonton maxaa u prefer garan waa aniga Edmonton maxaa kugu sheegay inay imaato Edmonton waa weyn tahay way buuq badan tahay Soomaali ka soo imaado Edmonton madax u soo galaa dadkii joogana way ka tira badan tahay magaalo shaqo waay especially like qof kasta oo magaalada wadanka imaanaya laakiin hindida ugu badnaatay magaaladu imaado oo soo aado oo ka soo raadsado lacag iyo nolol raqiis ah Edmonton hadda waxaan rabaa ka hadlo family-ga intaad caruur aad rabtaa wadan kartaa saddex tir ayaa ugu muhiimsan markaa family tahay ta koowaad oo ah hooy adeegi karto meel hooy fiican ah labo ammaan leh oo meel ammaan ah isku hubto saddex oo ah meel waxbarasho fiican leh oo caruurtaada waxay ka baran karaan nolosha intaas ka kooban hadaa family tahay intaas ugu muhiimsan priority koowaad so waxaan gelayaa meel hooy fiican leh waxa ugu muhiimsan meel aad jeebkaagu meel dabcan guri raqiis ku ah meel hooy raqiis ah oo u qalanta hooygaad ku noolaanayso iyo lacagteeda isku qalanto aad si istiraxa aad ku seexanayso aad ku soo kacayso okay gobolka ugu fiican ah hooyga dabcan Alberta is the first one waqtiga hadda la joogo waqtiga wuu isbedelaa waqtiga hadda la joogo Alberta is the best. Alberta way si kala baxbaxda Edmonton ugu weyn Calgary ku soo xigta iyo gobollo kale iyo magaalooyin kale yar-yariisa so Edmonton is the best place haddii aad family tahay sababta maxay tahay hooy raqiis ka helaysaa haddaad tahay qof dhalinyaro ah oo dhigi karto shaqo u baahan shaqaysan raba hooyo iyo aababo way shaqaysan karaan caruurtaadana xoogaa wax way ka heli karaan oo dabcan way shaqaysan karaan waxna way ku baraka Edmonton wali ku jira Edmonton maxay ku fiican tahay waxay ku fiican tahay waqtiga hadda la joogo waa magaalada la isdhigi karo Soomaalida ugu badan ku nool Toronto ku soo xigta laakiin markii si loo fiiriyo hadda Edmonton ka weyn sababtu waxay dadka inta ugu badan imaanaya qof kasta wuxuu soo aadaya Edmonton wuxuuna ku dooranaya waxa hadda ku sheegayo oo ah guri raqiis ah hadda u baahan tahay hadda qof Soomaali qaxooti ah Soomaalida meeshan joogta meel kasta ay sheegto hadda wada marayso qof Soomaali arkaysa so waxa helaysa Soomaali badan oo ku caawisa dhinac kasta ka garab istaagta waxa ku soo xiga waxbarasho hadda u baahan tahay caruurtaada markay wax baranayaan qof Soomaali helayaan dhankiisa ka caawinaya so Edmonton aad ku fiican tahay magaalooyin kale ay jira guryahoodu raqiis tahay noloshooduna way fiican tahay si hore u sheego kala Ottawa waa wadanka meesha looga taliyo nolosheeduna qaali ma aha raqiisna ma aha iska middle way hadaa family taa caruur ah wadato waxa kale ku socotay Calgary oo ku taala Alberta laftigeeda ku taala Soomaali badan ma joogto Ethiopianka saaid ugu badan haasoo tahayna guryaheedana saaid qaali ma ahan markii loo fiiriyo Edmonton raqiisna ma aha oo Edmonton waxa ka raqiisan oo family-ga u fiican talabaadu ah amniga okay
qodobka labaad oo raba in aan galo waxa waaye ammaanka horta meel kastoo aad joogto ammaankaaga ilaaha ballan qaaday ammaanka Canada somehow wuu xun yahay somehow wuu fiican yahay qofka ku xiran tahay meesha aad iyo dadka aad la socoto okay hadda ammaanka waxa u gelinaa waxay tahay hadda family ta caruur ah wato caruurtaada meesha aadayaan waxay sameynayaan muhiim ay ku tahay okay gobolada ugu fiican ammaanka ilmato Canada dhan isku mid waaye laakiin gobol kala xoogaa wuu sii yara dhaamaa markaad caruur wadato sababtu waxay tahay waxaad rabtaa caruurtaada meel aysan ka arkayn dad xun dad wanaagsan ay ka helayaan dabcan ilaaha caruurta wanaajiyo caruurta ilaaha noo wada wanaajiyo laakiin ilmaton waxaa loo badiyaa meel ama saaid aan u buuq badnayn way jiraan inay xun tahay ilmaton somehow laakiin familiyadu way ku nool yihiin qof kasta nolosha soo ceersanaya shaqooyinka Canada yaala way badan yihiin laakiin waxay ku xiran tahay shaqada kale way ka lacag badan tahay daamin shaqadii ka dib badan tahay way ka lacag badan tahay haddaan dhalinyaro tahay aad leedahay aniga I don't care shaqada si waa adag tahay aniga the only thing I care about is the money haddaad saa leedahay waxaad samayn kartaa kama aadi kartaa kamka markaa aado trade qaadanaysaa tradekaas yarba yar ka dambeeya first year second year third year badan loo xisaabiyaa mar ka dambeeya lacagta way ku sii badanaysaa magaalada waa laga dhex shaqeeyaa magaalada badanna waxaa la sameeyaa warehouse laga shaqeeyaa lacag badan ma ahan laakiin waa noloshaada waa ka samaysan kartaa xogaa familkaadana waa ka biili kartaa laakiin waxba kama save gareyn karto lacagta lagu siiyo waxay noqonaysaa noloshaada iyo familkaada qof taa binaadana naraga taa family ka soo tagtay familkaaga ka taxadarto waay soo marka familkaaga intii aad siisay inna waa isticmaashay wax kale oo meel ku dhigmaayo ma lahan muhiimadda aad u rafaadaysana waxa waaye inaad at least meel wax ka dhigato si bulsho wax ku anfaco because waxaan xamaal ku daalaysaa dhalinyarada tahay mustaqbalka ku sugaya kaamka waxaa ku sii xiga dhalinyarta badan ay sameeyaan Soomaalida inuu sameeyaan meel kastoo joogo taxi fuulaya because anaga xirfada kaliya aan leenahay waxa waaye gaariga wadi karnaa ninka dhalinyarada burba la keenay waxa leeyahay waraa maxay xirfad leedahay ku isku soo jiraa darawal ah bro qofkas darawal uu yahay maxay xirfado kale leedahay ina sayid so darawalnimo waaye darawalnimadaas waxa ka shaqeyn kartaa waa gaari inaad wado track inaad aado wadada aad fusho oo aad iskuulka soo dhameysto amase inaad sameyso inaad taxi afusho taxiga magaalada aad iska wareegdo marka taxi lacag badan ma lahan xogaa waxa ka lacag fiican track inkastoo mar ka dambeeso track uu si babaayo lacagta iyo rafaadayso aysan isgalanin especially hadartan track lacag badan kama sameynaysan oo baabaysa markii lacag la sameeyay track oo la shaqeynayay waxay ahayd 5 sano 6 sano ka hor هذا مريكنا نجف في عنا مريكنا هذا نيك صوت تراجع تراجع وسجد يا تصدق أنا جوا كور هنا سوينا تكسي وضو هنا تراجع وضو وحكي حين ملهن ودي كرت مجال هذا وين ماضي لك وكل أسبوع هاي الشقة وبهنا هنا الشقة استوى يا قبل كده كده لقى الشقة أو كندا Alberta markii laga soo dirxogaan noloshooda yara qiis tahay oo lacag ka sameyn karto hadda magaalada dhex joogto magaalada aad ku nooshahay waa Ottawa Ontario way weyn tahay laakiin gobolka yarka oo magaalada yarta oo Ottawa oo magaalada madaxda Canada ah iyada waxa ka sameyn kartaa noloshooda waa iska raqiis haddii aad kiradaada iyo waxaaga haddii ka soo baxdo at least wax yar meel ku dhigma hadda magaalo ka shaqeynayso waaye kiradaada iyo noloshooda haddii ku soo haran waxa laga yaabaa adoo magaalada joogna wax yar ku dhigman Ottawa waa magaaladaas magaalo kale oo aad ka shaqeyn karto oo Canada ku taala gobolada kale waa of course magaalo kasto yar ah waa ka shaqeyn kartaa haddii aad magaalada joogto kaliya waxaad ka shaqeyn kartaa raadsin kartaa wixii taa gobolka magaalada wadanka ku cusub tahay inaad taxi ka fusho inaad Uber afusho ama inaad warehouse ka aado magaalooyinka kirarka waa lagu sameeyaa laakiin wax badan kuma dhigmayaan hadaa tahay dhalinyaro ah oo lacag soo raadsaday waxay danta ku kalifaysaa meesha lacag taalan iyo aado meesha lacag taalan gobolada fiican waay laakiin mid ogow lacagtaas aad raadinayso waa inaad u hurtaa rafaadkeeda because waxa loo rafaadin lama helo